السلام عليكم برادر ان ايامنا واكو سلامي sidoo kaleento marka hore waxaan tacsi u dirayaa dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed oo macallin qaali ah oo ka tagay sidoo kale dhammaan reerkii iyo eheladii oo ka geeriyooday marxuumka Saciid waxaan yaqiinay muddo waxaan hore ka bartay markii aan ku soo biiray saxaafadda Soomaaliya wargeyskii xididka October 1984 ama 84 سعيد وحو أهانين قلب فران وبلشاء وداء يرتدير جلية قعان قابتا ومركا مركي سعيد أنا يقوه الرئيسي أن نقول مركا سعيد وحو كشاقين جري قيبتا عربية ورقيسكي حديث أكتوبر اللي يقين نجمة أكتوبر أيو سعيد كميد أها ذاتكي أساسي أن أو أها لفدبركا مركا سعيد انت سيان مركا هوري أن كاقاني وانت هدا أن سلايهي ونين lagu qadarin karo inuu ahaa aabihii saxaabada Soomaaliya dadkii ugu horeeyay asaasay marka adiga wax shaqo ah oo idin dhex maray ama hawl aad wada qabateen oo aad shakhsiyadiisii ku garan kartaa ma jirtaa ها سعيد waxay Soomaali dhahdaa qofka aad rabtay inaad baratid jidiin la qaybso ama jid la mar سعيد waxaan la aaday safar anagoo ah laba saxafiyiin ah asagii anaga isaga iyo aniga dabeetana waxaan la soconay nin ayna ka shaqeynay wargeyska Sharq al-Awsat waxaan loo diray Hargeysa diyaarad khaas ah waxaan kaloo tagnay Garowe waayadii dibka wadanka ku soo kordhay ayay ahayd oo dagaaladii sokaya ahliga ah ay bilaabanayeen markaan ka soo duulnay Garowe oo soo soconay Muqdisho ayaa diyaaradii naga gashay cilad waxaan ku deganay Gaalkacyo سعيد هذا مركي ديار عن سيد دوشي هذا علادي باسون نقطي وكل نقولي وحنكون نقولي قال كعيو إلهي وحو قدري أنت ديار اللي سميني إن سعيد أسرعنا وأنا صوب وقده يديس ودقني قال كعيو ومدة أركن يعني قدرك إلهي بين نقطي وحياب له وإلا هذا حسوس سويان هو يوم نسوا أركي وقف ويا الأهد سعيد مركا سيدا عنكو شيء ونين عندكو قبانية قرب كوسينية كدي رجلينية وحكوا قبانية كبعد أنت كان صار نقولنا صحفي عرب كأها أكيد من لندن يعني أصدق هذا نوع حموت من مدحوني سياد برة الله يرحمه ومركي جوهرس إنه شيء ده عن سياد برة إن حفيز كل مو أما أركو أبد أنا جا شقة وجوت جاي مركا حفيز كيسة إن مركا سياد برة ونسود وياي وحال جو عوكي ورئيس من كقادني أصدق هو ترجمانكي إن أصدق عرب كأكل ترجمية النوع عن أحاس أو قاده marka sawir kamid ah insha Allah ku soo diri doona oo famous ah oo aan ka qaaday habeenkaasi kulanka saxaafadeed oo dhaxmaray wargeedka Sharq al-Awsat iyo Maxamed Siyaad Barre oo ku saabsanaa dhibkii wadanka iyo dagaaladii ahliga ahaa oo wadanku soo badanayay waxaan kaloo rabay inaan intaas raaciyo dhammaan saxafiyiinta ka mid tahay inaan u tacsiyeeyo Saciid nasiib wanaag hadana waxaan la kulmay oo soo arkay markii wadanka aan ku laabtay markii ugu horeysay 27 sano kadib ayaan ku noqday wadankii anoo muddo deganaa Seattle Washington Saciid markii la ii sheegay inuu wili joogo magaalada ana dukaan ku yeelay Makka Mukarrama ugu tagay sidiisii buu Saciid wili u qoslaya asagoo daa noqday laakiin ishaya oo taagan oo maskaxdiisa fiican tahay oo ku xasuusanaya waa sheekaysanay waa kaftarnay waa Saciid kan qiinay inkastoo daadiisu markaas ay dhaaftay 80 years ama 80 sanadood marka Saciid waxa waaye Ilaahay ba maanta hasiyo jannadii firdawsaha ka waraabiyo ilmihii uu ka tagay xaaskiisii xawaa samir iimaan ka siiyo qof kasta waxa lagu xasuusan karaa wanaagii ummadaas uu soo qabtay waxaan kaloo xasuustaa qormadiisii caanka ahayd ee lagu yaqiinay ee ahayd Indo-Indayn oo uu dadka dareenkooda markaas wixii socda magaalada gudaheeda inuu soo dhageysto haddana ku soo qori jiray wargeyska asaga iyo dawladii ka caanka ahayd waxa ka dhaxeeyay xiriir saaxiibtinimo iyo mid cadowtinimo sometimes marka way isyaqiineen wala qadarin jiray din magac la ayuu ahaa oo la xushmeeyo ra'yigiisa ma ahayn ka baqda inuu dhiibto taas ayaan ku qadarinayaa geesina uu ahaa oo saxafi asal ah oo Soomaali ah inuu ahaa ayaan aaminsanahay Saciid Allah yarxamo wama santahay barada ayaamne Somalida uhilise hanolato